dadnimoyo ammaan baan u baahannahay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا تحيس الأخيار تندقيتنا إساء كسو دوادا برنامج كي مرتسور برنامج كمرتسور تضباط كان وحا مرتيوه جامعات الدلكون واحد يقرأ مثلا جامعات هرقيسو كلا ديتكتينا قبلنا بحيث سومالا نقول بلانتا jaamacadaha mudug iyo lasay PSU iyo Africa eeriyada ay ku dhadhooyin laakiin jaamacadda Amuud Soomaali ay degmo aad qaadaan ku jirin saaka helimayso lahjad walba laga hadlaa marka kubadda la ciyaarayo 13 kulliyad baa ciyaara kulliyadaha qolada reeyawda ku yartahay waxbarashada kamid ah macallimiinta waa laga badan yahay kulliyadaana afkarayno arrin maxay faa'iideysaa halkeen la eegaya marka waa Soomaali halkay joogtaa runtii waa gudoomiyaha jaamacadda Amuud ee magaalada Boorama Professor Saleebaan Axmed Guuleed oo ah khabiir inta badan waqtigiisa ku soo qaatay dhinaca waxbarashada Saleebaan waxa uu macluumaad badan inaga siin doonaa jaamacadda uu gudoomiyaha ka yahay ee Amuud oo kamid ah jaamacadaha ugu waaweyn uguna magaca dheer gobolka sidoo kale Saleebaan waxa uu ka hadlayaa ahmiyadda waxbarashada iyo guud ahaan doobka jaamacadaha Soomaalidu ka qaataan barnaamijku waa martisoor anigoo tolmaana idin la socodsiinaya wuxuu idinka imaanayaa stuudiyaha dalkii magaalada Garowe waxaad nagala socotaan dhammaan deegaanada Puntland bariga Itoobiya qaybo kamid ah Somaliland gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya xeebaha koonfureed ee Yemen iyo barta internetka ee daljir.com aan gudagale wariye Cabdifataax Umar Geedi ayaa dhawaan professorka waxa uu kula kulmay magaalada Boorama gaar ahaan xarunta jaamacadda uu gudoomiyaha ka yahay ee Amuud waxaana uu marka hore ka hadlayaa taariikhdiisa nololeed bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wahda salatu wassalamu ala rasulillah awalan wa akhiran ilaahi ba mahalla waxaan kaaga mahadcelinaynaa adiga iyo idaacadda dalkiisa ka wakiiltahay adigoo Cabdifataax Umar iyo radio dalkii bahdooda iyo dhageystayaasha iyo maamulkaba adigoo halka meel fog yimid runtii inaad xog urursato wax ku olaho waxbarasho iyo taariikh iyo dhaqan iyo la wada xiriirta way yartahay maalmahan yaro war yaro khafiifa meelaha dhalinyarada la boodboodaan anigu Saleebaan Axmed Guuleed waxaan ahay gudoomiyaha jaamacadda Amuud bulshada reer Somaliland iyo kuwa Puntland Soomaalida geeska Afrika iyo kuwa dibadda baan soo naqaan runtii waxaan ku dhashay maaha xuduudan bariga isticmaar baa dalka wada haystay aan yareereyn waxaan ku dhashay xuduudda shishadeeda gobolkan Soomaalida Ethiopia tuulada Jaaraleela wadamada Barootan hadda inagu xigta ayaan ku dhashay iskuulka primary-ga ana waxaan ka baxay ama dugsiga hoose waxaan ka baxay oo Barre iyadoo Ingiriisku jooga xabashiina nagu soo gaadhay dhalashada waa 42 meelaha dabato Amuud baan soo galay iskuulkan intermediate school oo iskuulka dhexe ahaa 4 sano ilaa 7 sano ahaa oo markaan xagga jirin markaan Amuud ka baxnayna secondary ka hoose imka waa ku jaamacaddu ka tirsan oo kulliyadda beeraha ayaa kan oo soo galay Ingiriisku gacanta ku hayo oo secondary school markaa ahaa secondary qura ee Somaliland protectorate wadankii loo oran jiray ka jiray markaan sanad ku jiray ayaa sheekh oo cusub la noo wareejiyo markaa la dhisay kan 8 sano secondary ahaa oo waxaad ka warqabtaa ragga ka baxay hadii aan ku sheego Somaliland ragga madaxda way badankoodu secondary ahaan Amuud bay ka baxeen waxaan sidaan tagin Axmed Siilaayo dugsigan uu ka baxay kan uu ahaa daahir yaala kan uu ka baxay Saleebaan Gaal kan uu ka baxay raggan madaxda waaweyn wixii xilay aniga iyo wixii ga weyna halkan ay ka baxeen dadka sheekh oo markii dambe iskuul ka baxay Mareykan bay waxbarashadeedii hore undergraduate jaamacadda ahayd waa soo noqday 7 sano shaqeeyay daba postgraduate master's degree waxaan ku soo qaatay jaamacadda London postgraduate ku ahaa kadibna sidaan ku sheegay waxaan kaga soo bilaabay dugsigan oo macallin iyo maamulaba ka noqday ولا فولنا وان شوفي مدرب لبعتني سنة معلم مدح واحد education psychology associate dean هرمودنا وقتها سيدتن كلا لوري سيدتن كي هنتي ومركا صادر وزارة دحبر الشدنا وحن كهان شري مقدشو أقاسمها دكسية سرع يو فرسمة أيام كأهمدو
gaaban oo 2 sanad iyo ilaa 2 sano ah kadibna Addis Ababa yarimid oo dhowr sano joogay oo aan Soomaalida Ethiopia ururiyoon meel isugu keeno gudoomiye aan ahaa iyagoo 12 urur laan u tagay hal urur baan u sameeyay ururkan Ethiopian Somali Democratic League ay dhahdaan ana sameeyay aniga iyo Dr. Abdulmajid iyo taas markaan waxoogaa la joogayna jaamacadda Camuud baa baahi timid halkana la aroosiyo la jaamacadda samaysanayna markaa dadkii asaasay baan kamid ahaa maalintii ilaa maanta ana gudoomiye ka ah luqadaha ugu badna waa Carabi iyo Soomaali iyo Ingiriisi axmaarkana waa fahmaya xabashigana waa fahmaya taariikhdayaduna waa waxbarasho runtii sanadkana waa sanadkii 40 waxbarasho ku jiro meel kale kama shaqeynaa waxbarasho ahayn inta burburkana meel baan ku jiray waxbarashadii meelahan ugu badnaana waa Camuud oo 2 jeer aan ka shaqeeyay oo markii secondary ahaydna principal baan ka ahaa 60-aadkii dambe iyo 70-aadkii hore kadibna anigoo gudoomiye jaamacadeed aan ku soo noqday runtii Camuud oo aan iyadu dhisnayn laakiin anagu raggii bilaabay aan kamid ahaa halkan principal founder markii la asaasay ilaa markaan aan gudoomiye ka ahay oo ku yaraagay runtii caadi maaha meelo badan oo waa isbedelku waa badan yahay geeska Afrika marka saad aragto nolol kale ma lihi oo taariikhda qabanay waa inta aad baa kugu mahadcelinaya waxaan rabaa hadaynu arrinta jaamacadda gallo arrin taariikhda halka ku dayno Camuud xilli baan la asaasay Camuud waxa la niman dhalinyaro ah oo Sacuudiga ka bariga ka shaqeeya fikradda keenay halka noola yimi dabeeto 1997 ayaanu bilownay kalaaskii ugu horeeyay oo markaan degree qaadanayn laakiin aanu ilaahay iska hubino inay material jaamacadeed yihiin oo xoogay duruus xisaab iyo ingiriis la siiyay marka 97 la bilaabay duraasad laakiin si rasmi waxa loo furay 98 laakiin waxa la bilaabay 97 marka ma jaamacadda waliya mise waa jaamacad si gaar ah bulshada shacabka u leeyahay horta waxaad ka warqabtaa jaamacadaha Soomaali oo dhan ay leedahay waxa bilaabay dawladda ma bilaabin sida qaalibka ah ma bilaabin waayo dawlado maamulada ka jira gobolada dawladda Soomaaliland Puntland Soomaaliya midna marka awood uma lahayn inay jaamacadda bilaabaan marka dad isu tagay oo shaqaamay qof ama laba ama group ama koox ama gobolba ayaa shaqaamay waxay ku bilaabeen jaamacado community ay leeyihiin badankoodu wax private oo asas qof ku leeyahay ma ahayn laakiin bulshada meel degan baa marka jaamacadaha bilowday hadda waxay ku socdaan soo jaamacaddan Camuud iyo Hargeysa iyo Burco iyo inay yihiin jaamacado qaran markaan leeyahay maamulku wali waa board of trustees ka ay magacaabay dawladda ima magacaawdo laakiin shaqada qabtaan waa shaqo qaran dawladaha iyo maamulada jirna waa ka amar qaadanaa oo wixii educational policy waa ku socnaa Somaliland gaar ahaan taakulayn baan nasiin xoogay taakulayn symbolica saas ka warqabto also dhismayaasha inta badankoodaba waa dhismahan ugu nimid waa dhismo qaran oo dawladdu leedahay maamulku baan wali dawladda magacaabina waa jaamacad qaran baynu oran karaa iska waana public private partnership waxaan leeyahay marka yaa fikirkaasi ka soo maaxday oo aad maanta hebel iyo hebel ka dhihi kartaa dadkii lahaa aragtidan asaasida jaamacadda Camuud laba group way horta group way fikradda keena groupna way fuliyeen arko daba ku jira group ka fuliyay ragga afsaasa keena afar nin bay ahaayeen Xasan Cali Cismaan waa jooga hadda dalka waxa kaloo jira isna Idris Maxamed Saad ninkan Rais Hotel ayaa isla jira oo Sacuudiga ka shaqeeya Abdulsalaan oo Mareykan jooga Salmaan Ahmed Wahab oo bangan dahabshiil Djibouti daaraka agaasimaha ka ah raggaas fikradda ka timtay fikradda of course waa la keeni karaa oo habeen walba 100 riyood baynu ku riyoona fulin bay u baahan tahay waa muhiim fikradda in la keeno laakiin waxa nagala sii muhiimsan raggii fuliyay ee jaamacadda asaasay oo fara badan runtii oo ay ku jiraan ragga hadda wada jooga jaamacadda oo dhan iyo kuwa naga tagay oo dhintay himilooyinkii loo qoondeeyay oo loogu talagalay jaamacaddan inay higsato maxaad iiga sheegi kartaa professor ogtahay Abdul Fattah beriga waqtiga Camuud la asaasay Soomaali jaamacad waa tii horeysay marka muqshaban ku horeeyay Soomaali marka way soo haysatay meel dagaal ka socda iyo meel yaaban dhalinyarada daruur madow halkaas soo saaray fikradda markii la keenay ee aanu ku dhawaaqnay Camuud baanu furay maalinta toddobaadka waxa noo yimid 300 fax beriga email yahay ma jirin 300 fax oo Soomaali oo dhan waa mid qoran ka jawaabna mid Australia ka soo qodo Barawani aanu maleeyay baana iyo ayaa wuxuu yiri war Soomaali war xunun baan ka maqli jawar wanaagsan kana noogu horeeyay ma dhab ah waa dhab baan ku nireen taas aan ugu jawaabay ujeedooyinku marka waxay ahayd
da'yartii wixii dadkoogii raacay ee dhoofay mooye intii kale haddaan la daba qabatayn soomaali nabadba kumay noolaateen oo iyagayna bulshadaa ka dhacday koonfurta ah ayaa meel walba ka dhici lahayd waxay ahayd 5 qodob ujeedooyin kow in rajaha loo soo celiyo da'yarta runtii adduunyada wax ka xun ma jiro meel lagu rajo beelay waa qofku markuu rajo beelo waa markuu suicide commit gareeyo istilo marka yeenan mass murder suicide ba ka baqayn da'yarta rajaha loo soo celiyo nidaamkii waxbarashada dalka in la soo celiyo dadka dabadda u dhoofaya dhalinyarada gaar ahaan ee leh waxbarasho jaamacadeed baanu tegaynaa in alternative kale la siiyo oo ka jaban oo ka khatar yar in aqoonyahanka dalka jooga meel lagu ururiyo ilaa inaga lafteeda axsaan lagama wadahayn xaggeedu frustration bayna wadanayn lahayd ama kuwii horaan ka daba tegi lahayd ama warlords baan noqon lahayn marka in aqoonyahankii halka joogay dalka dhex joogayna in la ururiyo ta kale afar in tusaale loo noqdo gobolada kale oo runtii aynu aragno meeshana nabad bay ahayd dagaalmo kaba dhicin horta booran inuu dhaqanka nabadu ka fiican yahay dhaqanka dagaalka oo faa'iido ka badan yahay ta ugu dambaysana hadday suura gasho inaan soo jiidino aqoonyahankii dhoofay meel ay ku soo noqon karaan oo aqoontooda ay ku exercise gareeyaan in la helo isla himilooyinka marka professor Saleebaan Axmed Guuleed maxaa ka hirgalay baad isleedahay maadaama waqti badan ay jireen intuba yani yaanan 100% hirgelin yes dhalinyartii rajiib waa loo soo celiyey oo iskuulada beriga hore way marnaan maalmaha camuudan la sameeyay markii camuud jaamacad baa la sameeyay iskuuladii abuuxsay la markii hore meel tagaali ma jirin waxay dhahay okay iminka jaamacad baa jirta oo dhalinyartaas hadda waxa ka baxay ilaa 2000 iyo camuud waxa ka baxay 2177 tiro koob la igu siiyay xafiiska registrarka inta waa tusaac dhakhaatiir baa ku jirta yani ay takhasus dalku u baahan yahay badankoodu waa ku jiraan markaad Puntland baad ka timi markaad Puntland tagto waad arki doontaa markaad barnaamijka sii dayso dhalinyarta Puntland joogtaa koonay oo boqolaala koonaya waa jaamacadeeda baad ka hadlaysaa kuwa badan baan aqaanayo ka soo xagga runtii waa adiga arkaya maanta inta jaamacadooda ka furan kiyaanu lahayn tusaalaha u noqoto gobol aanay ka furayn maanta jaamacada ma jiro aqoonyahankii la ururinayay 3 nin baa ku bilownay jaamacadda macallimiin ahayn oo 3 maadaaba laga bilaabo anigu midka aan dhigay ninna uu dhintay ninna waa nool yahay waliba diinka kulliyadda beeraha maanta waa 200 iyo siyaada professorada ka dhigay aqoonyahankan waxaan ururiyana waa kuwaas oo xarumaha ugu waaweyn lagu ururiyo aqoonyahan bay ka mid tahay haahay waxaan rabaa culumta ay bixiso iyo kulliyadaheeda bal sharaxadiga si professor kulliyadaha meesha lagu bartay waa kulliyadii dalka u baahnaa siday u kala horeeyaan baan kuugu sheegay waa 13 kulliyadood ayaa meesha ka furan kulliyada labada kulliyada ugu horeeyay waxay ahaayeen ba ujeedada ahayd kulliyada macallimiinta faculty of education iyo kulliyada businesska oo ahayd midna systemkii macallimiinta la fool ayaa dalka waday la fool marka waa soo gaboobayaan kuwii in macallimiin cusub dalka loo soo saaro waliba secondary schools loo soo saaro kulliyada businesskana waxay dad dhalinyartan in la baro accounting iyo management iyo marketing iyo waxyaabaha la baro si ay shaqo u helaan ilaa shaqo dawladeed ma jirto waa private sector waxaanu private sector ku baahi waa in la soo baraa oo management la baro computer la baro shaqada la baro dabta horta waa 13 kulliyad businesska iyo educationka dhakhaatiirta kulliyada beeraha iyo deegaanka kulliyada shariicada iyo qaanuunka kulliyada ilkaha kulliyada pharmacy-ga kulliyada nursing-ka kalkaaliyaasha kulliyada laboratory technology kulliyada engineering oo civil iyo electric engineering ilaa hadda bilownay kulliyada caafimaadka guud ee public health I don't think wax kale ka tagay kulliyada dhaqaalaha iyo siyaasadda political economics and political science waa 13 kulliyadood inta waxaan sida marka saaw eegto baahi baa dalka ka jirta of course shaqada loo kala badan yahay qaar ba markiiba shaqaheedii waxaad ku arkaysaa Puntland markaad tagto macallimiin halkan u dhalatay in xagga u tagayaan yani shaqalaani macallin ma qabsanayso marka meel walba macal ardayda waa ku soo yaacay macallinimadii dhakhaatiirtu ma shaqo beelayso kalkaaliyaal ma shaqo beelayaan qoliyaha businesska isku yar badan oo jaamacadaha Soomaalida mid waliba business oo furtay marka kuwaas xoogay la weer badan yahay oo laga yaabo inay xoogay shaqo beeraan laakiin inta kale waa jaamacadda Camuud hadda intaan soo dhaxmaray waxaan arkay dhismayaal meel ka muuqdo iskoolo ma taqaana fasal oo dhisan oo ii muuqanay bal markaad qof aan arag sawir harsiina ka siisay imisa dhisme oo kala duwan ayay jaamacadu ka sameeyeen tabcan sidii magaalo oo kale ay hadda u sameeyay muuqaalka aan dareemay
jaamacadda Camuud waa jaamacad ballaaran runtii xagga faasiliska markaad eegto walow aanay nagu filayn haddana markaad u eegto jaamacado kale way ballaaran tahay jaamacaddani waxay ku taallaa waa adiga arkay dooxada ballaaran ee Camuud leedahay Camuud waa vaaligana Camuud la oran jiray way ku taallaa togba halkaa maro wixii toga buurahan jaamacadda leh waa jaamacadda ugu campus ballaaran ama ugu dhul ballaaran ee Soomaali leedahay waxaan u tartamaynaa jaamacadda Kenyatta University jaamacadda Kenyatta iyo aan isu dhowdhownahay waxaa dhulheed arkaysa jaamacadda wadalo waanu celinaa inta yurtaasaanu haynaa dhismayaashan ogow meeshana waxa aan jirtay laba iskuul baa ka furaan jiray horta mid wuxuu ahaa secondary school boarding buu ahaa iskuul la seexdo kaasina wuxuu ahaan jiray intermediate school isla boarding buu ahaan jiray tasiilaadkii annaga la wareegnay ka aqaladii waanu daynay oo arday samarkii baa la soo galaa macallimiin baa ku tababaratoo seexata kan aqaladii fasallaanu roganay iyo xafiisyo iyo shaybaadhaanu ka dhignay dhismayaasha fooqaqaana annagaa ku kordhinay imaka berigii hore ma jirin waa 4 sano u dambeeyey ogow haddana Cabdulfataax ma aha un halkan campuska qudeen leenahay magaaladana campus weyn baan ku leenahay iyo dhul 4 xarumood magaalada ku leenahay mid waa kulliyadaha caafimaadka oo dhan xaruntooda isbitaalkan weyn ee soo martay halkan jaamacadda ale garigiisa waa xayaat bala waa iskuulku waa isbitaalka ugu cusub ee Soomaaliya leedahay waa ultra modern oo Camuud Foundation qolada la yiraahdo noo dhistay oo Mareykan joogta kulliyada halka kulliyadaha caafimaadku waa halka kulliyada shariica wal qaanuun waa magaalada freshmanka xaruntoodana waa magaalada ma ahun halka intaas oo xaruurooda runtii waan leenahay still ma aha ideal meeshii nagu filayd ma aha intaas oo dhismayaasha markaad eegto fasalada waxaanu leenahay ilaa taqriiban dhowr iyo 50 fasal way joogaan waan leenahay I think lecture hall iyo markaad isku darto fasalada caadiga iyo shaybaadhada iyo markaad isku darto library-gu probably waa library-ga Soomaaliya ugu weyn ugu buug badan 110,000 oo buug baa yaala afar library bay leedahay jaamacaddu kan weyn kulliyadda shariicadu mid bay leedahay kulliyadda medicine-kuna mid bay leedahay kulliyadda beeruhuna mid bay idna leedahay shaybaadhadan computerka afar computer lab baa jira ilaa taqriiban 200 oo computer ay yaalaan marka waan runtii markaad eegto dee u eegto wadcigeena aad baan u fiicnay laakiin intii jaamacada lahaan jiray wali waa tartan waxba inaga dhiman oo meesha ugu fiican marna ma gaadno laakiin waxaan isleenahay kolba halka joogto meel ka fiican baa jirta waa horumarka nuxurkiisuba waxa hadda ku jirto wax ka fiican baa jirta tiradii ardada imisa igu sheegtay barafta tilmaan guli waxa ku bilowray waa dadka phenomenal growth intay aad u kortay 65 arday 65 ayaan ku bilownay hadda waxay marayaan 3,500 iyo xoogay enrollment-kan u dambeeyay tirakoobkii la siiyey 3,517 meelahaas la igu siiyey tirakoobkii u dambeeyay enrollment-ka September markay soo galaan sana dugsiyeedka 13 waxa dhici karta 4,000 inay ku dhawaato marka tirada jaamacadda dhigata intaas way marka dib u eegtaan dacfadihii kala duwanaa ee ka qalin jabiyay jaamacadda imiso dacfadood baa qalin jabisay tirakoob dhaba sama haysan waanigi hadda ku sheegay kulaha wax ka qalin jabiyay 2,117 ayaa ka qalin 770 midkood baa ka qalin jabisay dafcadii 12aad baa qalin jabin doonta insha Allah July waa 12 baa ka baxay qalin jabin 2003 baanu bilownay qalin jabinaha sanad walba qalin jabiyaan sanad baa laba qalin jabiyeen laba qorob isu gaareen halka waa 12 dafcadood ilaa imka kulliyadaha sida gaarka ardada ugu badan tahay oo xiisayso oo aad oranaysa tirada ugu badan baa ka qalin jabisa marka loo eego dadka ka baxay kulliyadaha sida gaarka dadku aad u doonayaan horta waa kulliyadaha caafimaadka laakiin kulliyadaha ugu dad badan hadana ma aha oo inta la qaadanaya ka yar kuwa kale mesela hadda qoladana baan waynu mari doonaa qolada hadda freshman-ka halkan waa ilaa 900 arday baa ku jira oo sanadka koobaad oo kaliya waxa dhici karta 9 intaasi aqlabiyadu inay doonayaan inay kulliyada dhakhaatiirta galaan ama kulliyada ilkaha ama kulliyadaha caafimaadka inay galaan laakiin tartankaas inta ugu horeysa la jeedo waxa laga yaabaa kulliyada dhakhaatiirtu inay 35 arday bay qaadataa inta keenta ee ugu sareysana inay 200 gaadhaan marka waa la sii kala reebreeba marka intii kuwa weydaay iyo kuwa kaleba kulliyadaha business-ka ugu badan iyo waxbarashada labadaas hadana iyaguna aad tirada ugu badan tahay laakiin demand-ka ama dadka doonayay waxay aad ugu badan yihiin kulliyada caafimaadka
وقتهاي أخياري برنامجك ومرتصور وحانا تضباط كان برنامجك مرتين وقوة قدوميها جامعة عمود مقالة بورما بروفيسور سليمان أحمد قوليت برنامجك هالكاس أيونا وسي سعون دونا صاحبتي لما صرت بوتين ليشكم التراقي حدين أنا ما نحن قنح يدي قبيل يدي الفودي وحدة قلت يدي نقطتين حدي واحد يبابه واحد هو قبيل ما كلامه ما أنت ممكن أن أنت يهدي مقاله بقول أن يلا بقول قبل بقول إسراعان مقاله وين بيتقبل كلام هو إسراعان ما أنت تدي ولفتي لأن واحد ثاني نكام مقال لكن نكام مقال واحد نكام مقال دا عضله نكام مقال يحشوت كأي مقال ما كتير دا عض يحشوت هنا وحنا ما هي ها هجانكي أيا إنك حماضي هجانكي نقنكا هجانكي تعليمتا هجانكي سياسة كي نقالها هجانكي قويسكا وحبضنا بربري يعني هجان بدو أردن أسيقنا يعني نافع ليك ما نسي واي إنك بدل كان سكوب دراسة ومريكا صدري يرصد على صدر بين كل حد له كبريت دوري انك قبنايا تلفزيونكي سكولاتكي رسالاتكي حفيزي الدولة ولا بابي ومحمد سياد برا دلك لها بس الصومالي بالعيد ونسيب درة شخصيات مسافرة أما شقا أصوبحي شرنا زمينين شامنا يلاميقا إنا شلي مدودي وشرفت بك قادان أدينا كشيعين شركا ولي بلو يهي فالعرش قال هذا شيقا كدان تانا وحياله وقدرنا وقوب أن لا يابنا ورمتي حدان لهيرين هرمر أن ليسان كذا وحويدك وحما أخرستان أقوني وابوك وأخرس waxaan xasuustaa madaxweynihii inuu yar oo iskuulka aadaha waxaan xasuustaa meesha wadadan masaajidka Sheekh Cabdulqaadir baa waxaa ku tukan jiray madaxweynihii hore Soomaaliya aadan cabdi villa Soomaaliya lug kaga soo bixi jiray isagoo keligiisa ama waxaa la socda nin dar la socda رب ماشي وضع كسر دين جل كم رجال سايد كنت كنجل يروقو دمبا هل برلمان له سيكس تايجرز بعد ما قليسا وضمنا عند يقطع اللي حدا يسوتكي لاتين أمريكا دمبا يسوتكي مريكانيا كندا إيو وحي يسكن نقدم بلوغ دولته عرفتها هذا وحي هابانا يعني إني وحي سودادية أنه مركا حتى سكرف بلوغ إنا نساعدين أمدهان بانو كفشلاني خوص بانو سيسان قالها waxay leeyahay boqolkiiba 70 xooluhu ku tirsan warxoolihii boqolkiiba 70 ku tirsanaa hal iskuul oo xoolaha lagu barto iyo daaqa lagu barto kama jiro wadanka hadda waxaad arkaysaa dad dhalinyaro oo dhalinyarnimo weyn oo 30 jir waa nin weyn 20 jir waa nin weyn guriga wali fadhiya oo waxba qabanaya hooyadii quraac ka sugaya quraac maxalliin hooyadii ay soo ordayso inaan baanaha waalidkii u arrin qaadaaye aqal iyo dugsi baan haystay iyo meel agaashimane hataagi yimaadaba rag baa igaga oodnaaye maantana afdhiigadan dayacan baan allignahaye afartayda gees baan raggii ka iibinaya waxaan rabaa Somaliland marka laga tago meelo kale oo ardaydu idin ka timaado Camuud ay ka soo aadaan ma jirta horta jaamacadana waa jaamacadda dalka oo isugu dhexgal badan Soomaaliba maalin tirakoob baa lagu siiyay xafiiska registrarka inaynu ka heli doono waxay ka yimaadaan marka laga reebo gobolkan Awdal koob iyo 30 meelood oo kale oo مثلا gobolka Gabiley markaan gobol ahaan gobol eegno Maroodi Jeex Togdheer Sool Sanaag gobolka Bari Karkaar gobolka Mudug
gobolka galguduud gobolka hiiraan gobolka muqdisho banaadir gobolka shabeellada hoose shabeellada dhexe way ardaydii maan tirinaya magacyadii hore ma xasuuso gobolka kismaayo jubbada hoose gobolka bay NFD qolada waqooyiga Kenya hatta waxa ku jira faarax macallin inankiisa ku jira oo looga dhigto faarax macallin gudoomiyaha baarlamaanka marka dibadda Sacuudiga Imaaraadka waxay ka yimaadaan oo kale Mareykanka ardaydii soo noqonaysay UK Canada jaamacadda dalkoona waxa dhici karta مثلا jaamacadda Hargeysa oo kale dadka gobolada dhexe ee Soomaaliland ugu badan tahay jaamacadaha mudug iyo lasay PSU iyo East Africa area ay ku dhadhooyin laakiin jaamacadda Amuud Soomaali ay degmo aad qaadaan ku jirin saaka heli mayso lahjad walba laga hadlaa marka kubadda la ciyaarayo 13 kulliyad baa ciyaara kulliyadaha qolada reer awdal ku yartahay waxbarashada kamid ah macallimiinta waa laga badan yahay kulliyadaha afgarayno arrin maxay faa'iideysaa halka la eegayo marka waa Soomaali halkay joogtaa runtii waxaan rabaa salba inaan ku weydiiyo ardada meelahaas ka kala yimid dabcan banaanka marka laga tago gobolkan oo kale ma iyaga dabarto hoygooda iyo noloshooda mise jaamacadda wax ka caawisa warda meesha waxaad ogaataa waa faqiir wax barayaanahay maaliyaddeena ma siiso shaqooyinkii qolkayga jaamacadaha bilaabay shaqooyinkii dawladdu qaban jireen baan isku qaadnay iyadan raasamaal meel laba noo oolin marka waalidku inta yara fiiga u bixiyeen baan wax ku dabarnaa oo si fiican ugu dabarnaa runtii dadkani waa dad soo cilmi doontay waa dad ku soo talagalay kharashkooda u badan yihiin magaaladan magaalo kharash badan ma aha waxaad arki doontaa ama aad maqli doontaa markaad warsato magaalada Boorama haddaad soo gasho qolamaata lagu oran maayo runtii maba dhaqanba uma laha inay tooydaan reerka qofka iska yimid lahjad kasta ku hadasho faduuliya male halkuu ka yimid waxba kama gelin waa Soomaali no problem therefore ardaydu way jecel yihiin magaalada iyaga reer Puntland bal hadda warso inamada in la weeyo la warsado iyo in la faqooqo iyo waxaada warsan magaaladuna kharashkeedu ma badno oo inamadu waxay sameeyaan system ah inay guriga wada kiraysan misalan 10 arday 10 ka arday qofba ka gabadh ama wiil ayaa soo kiraysanayaan u karinaya raashinka jimlad ku soo iibsanayaan waa boarding jaban iyaga isbira kharash kale badan magaaladu ma walaha ardada ka qalin jabisay jaamacadda Amuud maadaama dacfada badan ka baxeen sidee u helaan fursado shaqo ogaalkiin horta haddii ciiduna jaamacad shaqo heshay iyaga ugu badan jaamacadaha dalka runtii inama mar dhawto urur bay leeyihiin hadda ilaa Puntland oo la ka baxayaasha jaamacadda Amuud University Alumni Association ayay leeyihiin urur bay leeyihiin ururkaas habeen Hargeysa ku shirayeen baan tagay warbixin baa la nasiyo shantii dafcadeed u horeysay 70% way shaqeeyaan 30% hore kuwa wada shaqo beelay inta oo dhan ma aha kolba waa helaan haddana waa ka tagaan waxyaabaha laakiin inta ay ku ogyihiin marka tracer system bay sameeyeen ilaa kuwa dibadda jooga ay warsadeen waxay igu yiraahdeen 70 ilaa 70 ayaan shaqo ku ognahay shantii dafcadeed u dambeysay hadda waxaan ku tala jiraa system xafiiska arrimaha ardayda inuu dabagal sameeyo meel kasta ha joogaan ardayda ka baxda iyaga is yaqaana bal meelaha ay ku dambeeyeen shaqo jaamacadda 12 dafcadood inay helo waqad professor jaamacadaha kale ee dunida yaad xiriir la leedin Amuud ahaan jaamacadaha dunida in badan baa la xogay intii aan kulli u baahno مثلا barnaamijkan medicine ka caafimaadka iyo nursing iyo jaamacadda London baan wada wadnaa macallimiintooda yimaada external examiners bay leeyihiin labada kulliyadood annagu imtixaanka ma qaadnaa kaga baxayaan shahaadada annaga laakiin imtixaanka macallimiin shisheeya oo Faransiga qaada oo London uga yimaada jaamacadda London waa la leenahay jaamacadaha Afrikada bari badankooda waan la leenahay oo Kenyatta University of Nairobi waxaan u diraa medical students iyaga ayaa jaamacadda Nairobi halka graduate school ka galaan takhasuska halka ku sameeyaan jaamacadda Dar es Salaam xuduud baan leenahay jaamacadda Ethiopia waxaan heshiis la galay Alamayo oo beeraha ku fiican iyo jaamacadda Jimma jaamacadda Khartoum iyo jaamacadda Aljazeera Sudan heshiis baan la soo galay jaamacadda Al-Mansour ee Masar lafteeda heshiis baan iyada lafteeda la soo galay marka xiriirkaygu socda Turkiga hadda waa ku soconaa 9 jaamacadood Amuud ku jirtay PSU ka mid tahay iyo East Africa Hargeysa Golis iyo Burco marka xiriirka waa sida dalku u koriyo anaguna inta u koreyna waa gartay waxaan rabaa inaan kula weydiiyo maadaama xilli badan aad jirteen Amuudna jaamacad weyn oo runtii la yaqaan ay tahay wali wax cilmiyo aad ictiraacdeen ama aad alifteen oo aad dunida ku soo kordhiseen ma jirtaa dunida Soomaaliya wax weyn kuma soo kordhin wali waxa jira
afar iyo toban shan iyo tobankaa sane camudi jirtay horta undergraduate bu wax iyagu bataa digriga hore bishii September ayaan noqonay jaamacaddii ugu horreysay ee Soomaaliya ee post graduate MA iyo PhD ka bilowday halkan wadda meesheeda hadda iskuulka graduate-ka ama takhasus leh waxa ku jira 125 arday ayaa ku jira oo BA haysta oo master's degree la siinaya 2 sano ka bacdi PhD dina duruusahan waxaan bilaabaynaa bisha April ama May ayaanu halka bilaabaynaa waa ardayda waa ragga cilmi waliba waa cilmi baaris oo badan yihiin waa ragga hadda iyo haweenkaba laga rabo in makan cilmi weyn ku soo kordhiyaan oo research-ka ka mid dhaliyaan imika runtii markaad eegto waxaan la tacaalaynay ardayda wax u dhiga cilmi baarista ma badnayn kulliyadaha caafimaadka iyo kulliyada beeraha ugu badan wax research sameeya hadda waxa dhigtay kulliyada waxa gaaga sheegay waxay bilowdeen 6 walxood ayaa Ethiopia laga soo iibsaday oo khudrada tawaadada ku jira qajida ku jirto basasha ku jirto cabbage ku jiro oo sanadkii Soomaaliland oo kaliya kaga baxaan amsuur Puntland iyo Soomaaliya kalaba kaga baxaan ilaa $8 milyan hadda 6 bay tijaabo ku sameynayaan Mareykanku iyagu fadgareynayo oo cibrada ku bixi karaan biyaha intay qaadan karaan cudurrada haday jiraan waa in 4 xilli la beeraa xilligii ugu dambeeyay imika ku jiraan tijaabadii waa naaji haddaad aragto bahalkii yahay tamaadhadu intay la egtahay kan Ethiopia leeyahay ka ballaaran tahay marka waxaan rabnaa taa marka lagu guuleysto xilliga ugu dambeeyay la dhameeyo in la badiyo abuurkooda seedskii la badiyo oo beeraleyda Soomaalida marka loo qaadiyo marka dib u eegtid sida ay sheegtay professor Salebaan Axmed Guuleed muddo nus qarni ku dhowaad macallin ahayd oo waxbarashada ku soo jiray Soomaalida bal maadaama burbur wadankii ku dhacay oo qaran jab jiray waxbarashadu inta burburka lagu jiray ma kobocday mise hoos bay u dhacday marka waxay ku xidhantaa kolba dhinacaad ka eegto runtii intaaba waa soo jiray oo tii gumaysigina waa soo gaadhay oo arday baan ka ahaa tii dawladdii 60kii bilowdayna macallin iyo ardayba waan ka ahaa oo 60aadkii horan ka baxay iskuullada 4-3-60kii tii kacaankiina wada joogo shaqaalaan kan hadda kuwan imaka jirana dee waanu la joogaaba markaad eegto horta adduunka wax badan ba iska bedelay oo cilmigii berigaa la dhigan jiray hadda ma aha waa cilmi ku base garaysan badankiisa technology taas waa arrin soo korodhay oo farsamo ah hase ahaatee marka aad eegto ardayga conceptka inuu fahmayo siduu yahay u fahmayo qoraalkana uu si fiican wax u qorayo hoos baynu xagga uga dhacnay concept formationku weliba af Soomaaliga kuwii kacaanka berigii kacaanka ay jireen ayaa ugu faham badnaa conceptka inuu ardayga fahmo because af Soomaaliya fiican baa loogu dhigay hadda qoraalkii baa hoos u dhacay af shisheeyana aad uma yaqaanaan kuwa hadda jooga af Soomaaligiina dee hoos u kaga yarxadaa marka laakiin xaggan teknolojiyada casriga ayay kaga fiican yihiin waxaa jirta xan dabcan la xiriirta ama loo soo jeediyay iskuulada waxbarashada Soomaalida iyo jaamacadaha laftigooda oo la yiraahdo dhaqankii iyo afkii Soomaaliga iyo barashadii wadankooda resource school ahaa iyo juqraafiyaha qaabka u dhigban yahay inta badan macallimiintu ahmiyadda ma siiyaan awoodda ma saaraan waxay taa beddelkeeda baraan wadamo kale dhaqankooda iyo culture-kooda iyo resource-kooda iyo dhaqaalahooda iyo ilahooda wax soo saar taas maxaad ka rumayn kartaa ama ka been horta waa yes and no ha iyo maya labadu waa isku jiraan runtii dhinac waa dhab oo weli taariikhdeenii iyo aad looma baalin juqraafiga xataa inbas xoog lama siiyo laakiin mid bay kaga wanaagsan yihiin wixii hore oo dhan oo tii horena tayada aan raacinaya runtii waxa weeye da'yarta maanta jooga iyo iskuullada maanta jooga intaba diinta islaamka aad bay u dhigaan soo ma garan ma jiri jirin berigii hore cilmaaniin bay u badnaan iskuulladuba berigii hore ma jirin jaamicad diinta islaamka si fiican looga dhigo tii muqdishona waan joogay oo Somali National University madaxda baan ku jiray aad looma dhigi jirin secondaryyaasha kuma fiicnayn macallin dayaanu halkuu kaalintiisa waad garanaysaan berigii hore imikana jaamicad aan diraasaat alislaamiya laga dhigin ma jiro kulliyata shariica walqanuun halkan waxa weeyaan loogii secular loogina waa la dhigaa degree baad ku qaadan kartaa laakiin minorkaagu waa inuu shareecadda noqdaa shareecaddana major baad ku noqon kartaa waa inuu takhasuskaagu noqdaa secularka laanno labadii maxkamadoodba si aad u fahamto soo ma garan da'yarta imika waad ogtahay oo badankooduba cibaadada waa naga badan yihiin berigaan yaryarayn oo kale balwadda waa naga yar yihiin motivationka waa naga badan yihiin soo ma garan oo ardayga xiisaha iyo shaqada iyo waxbarashada labadaba marka dhinaca haddaad eegto tayada waxbarashada maqyaaska aan ku qiyaasna uu yahay war ma baranaa tii ilaahay horta ta aakhiradana waa jirtaa ilaa labadii waxa la yidhi aakhirana u shaqaysta ibkana ka shaqaystaa la yidhi tii adduunyada qoladana ku fiican waa tayo waxbarasho waa tayo markaad dhinaca ka eegto
laakiin meelaha xagga qoraalka iyo afafka iyo hoos ba u dhan gabagabadii waa ku jirnaa waraysigeena dabcan barnaamijka martisoor radio deltir dhinaca dhaqaalaha maadaama jaamacaddu weyn tahay yaa idinka saacida mise adinkaa isku filan horta waxa weeye dhaqaalo jaamacadii ay jaamacad fiican lagu maamulo soomaali ma haysato runtii ma rabta waataan kulahaa hadda shaqa dawladuhu qaban jirin baan isku qaadnay marra waa calool adeeg marra waa indha adeeg ba hayd camuud markii la sameynaya calool adeeg may ahayn calool adeeg waa markaad waxoogay haysato inta kalena tawakal cala aad leedahay markaan waxba haynin waa indha adeeg oo sidaas garta jaamacadeenka indha adeeg calool adeegaasaa lagu sameeyaa laba kala jira kharash mid waa operational cost waxaa la idhahdo hawl maalmeedka lagu fuliyo macalinka mushaarkiisa shidaalka meesha dayactirka waxyaabaha taa fiigayada ardaydan ku filaysiinaa oo runtii oo lacagta haddaan la qariirin dawladdu way qariiraan haddaan la qariirin way fiican baraka badan tahay annagu macalimiin baanu waxama qariirno intii lanoo dhiibay baanu u dhiibnaa un dadka nagu leh oo macalin ka mid yahay oo shaqaad oo jaamacadda idile quruxda badan aanu runtii taa ku maamulo gaalkaashna siyaa ma jiro however hase ahaatee markaad egto horumarka jaamacadda u baahan tahay ma aha hawl maalmeedka horumarka filinta lecture hallska ama kale sida wax lagu dhigo gaadiidka computerada shisheeyaa la siiya deeqda ugu badanna waxaanu ka heli jiray midowda yurub waad weydiin kartaa jaamacadaha kale puntland ku yaalaba waa nooca midowda yurub baa noogu badan hadda turkigiiba haddana soo galgalay oo computerra iyo na siiyey scholarshipna wax naloo dirdiray meelo kalena weliba jaamacadaha qaarkoodna sida easterka oo kale waa kuwait iyo qolkaasaa ugu yar fara badan haajiri baa iyaguna gacan weyn siiya waad ka warqabtaa carabta hadda islaamka aad uma anaangin haddaan gelaynaa baan isleenahay wargaalkii waxna siiya dee ijaashaadena walaalahayna waxna siiya marka shisheeye oo u baahannahay waa laakiin primarily waxaanu isku hadlaynaynaa mustaqbalka fog aanu isleenahay wixii aad kolba idin soo gala ardayda markay badato dakhligiina oo soo yar badanaya taa wax ka sameeya su-aasheeda marka ugu dambaysa waxa weeye maxaa idin qoondaysan oo marka la eego sanadaha soo socda ama mid dhow ha noqoto ama mid dheer ha noqotee inaad u talowdaan horta strategic plan bay leedahay jaamacaddu oo kan sanadeedkun maaha laakiin kuwo ka wakti fogay strategic waxaa noogu jira waxyaabo badan kow horta tayada waxbarashada in runtii ahmiyad gaara la siiyo oo sida aan wax u dhigno always improvement baa loo baahanya mar walba in si ka fiican loo sameeyo laba in kuliyadaha hadda jira aan consolidate garin oon hagaajino iyaga ee aanaan kuwa cusub furin runtii centera waa laga yaabaa masalan soomaaliga aan ku jira jiraa center for somali studies inaanu samayno aqoon baanu baahanahay duul baanu baahanahay awoodii dawladnimo iyo ammaan baanu baahanahay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي حيث الأخيار تندقيتني ساي كسو دوادا برنامج كي مرتسور برنامج كمرتسور تضباط كان وحا مرتيوه jaamacadda dalkoona waxaad dhici kartaa masalan jaamacadda hargeysa oo kale hadday tagtayna goboladan dhexe ee somaliland ugu badan tahay jaamacadaha mudug iyo lasay p s u iyo east africa areada ayna ku dhadhooyin laakiin jaamacadda camuud soomaali ayay degmo aad qaadaan ku jirin saa ka heli mayso lahjad walbaa laga hadlaa marka kubadda la ciyaarayo 13 kulliyadood baa ciyaara kulliyadaha qolada ree awdal ku yar tahay waxbarashada kamid ah macallimiinta waa laga badan yahay kulliyadahan afgarayno arrin maxay faydaysaa haysa halkeen la eegaya marka waa Soomaali halkay joogtaa runtii waa gudoomiyaha jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama Professor Saleebaan Axmed Guuleed oo ah khabiir inta badan waqtigiisa ku soo qaatay dhinaca waxbarashada Saleebaan waxa uu macluumaad badan inaga siin doonaa jaamacadda uu gudoomiyaha ka yahay ee Camuud oo kamid ah jaamacadaha ugu waaweyn uguna magaca dheer gobolka sidoo kale Saleebaan waxa uu ka hadlayaa ahmiyadda waxbarashada iyo guud ahaan doorka jaamacadaha Soomaalidu ka qaataan barnaamijku waa martisoor anigoo tolmaana idin la socodsiinaya wuxuuna idinka imaanayaa stuudiyaha dalka ee magaalada Garowe waxaad nagala socotaan dhammaan deegaanada Puntland bariga Ethiopia qaybo kamid ah Somaliland gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya xeebaha koonfureed ee Yemen iyo barta internetka ee daljir.com
aan gudagale wariye cabdifataax cumar geedi ayaa dhowaan professorka waxa uu kula kulmay magaalada boorama gaar ahaan xarunta jaamacadda uu guddoomiyaha ka yahay ee camuud waxaana uu marka hore ka hadlayaa taariikhdiisa nololeed bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah waxda wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah awalan wa akhiran ilaahay baa mahadle waxaan kaaga mahad celinaynaa adiga iyo idaacadda daljireed ka wakiil tahay adigoo cabdilfataax cumar iyo radio daljir iyo bahdoodaba iyo dhegeystayaasha iyo maamulkaba adigoo halkaa meel fog uga yimid runtii inaad xog urursato wax ku oolaho waxbarasho iyo taariikh iyo dhaqan iyo la wada xidhiidha way yar tahay maalmaha nin yaroo war yaroo khafiifa meelaha dhalinyarada la boodboodaan anigu salebaan axmed gureed waxaan ahay guddoomiyaha jaamacadda camuud bulshada reer somaliland iyo kuwa puntland soomaalidaba geeska africa iyo kuwa dabadaba aad baan isu naqaan runtii waxaan ku dhashay maaha xuduudan berigaa isticmaar baa dalka wada haystay aan yaryarayn waxaan ku dhashay xuduudda shishadeeda gobolkan soomaalida ethiopia tuulada jaaro leelaa degmada abarootan hadda inagu xigta ayaan ku dhashay iskuolka primaryga ana waxaan ka baxay ama dugsiga hoose waxaan ka baxay abare iyadoo ingiriisku jooga xabashiina nagu soo gaadhay dhalashada waa 42 meelaha 42 dabeeto camuud baan soo galay iskuolkan intermediate school oo iskuolka dhexe ahaa 4 sano ilaa 7 sano ahaa oo markaanu xaggaa jirin markaan camuud ka baxnayna secondary ka hoose imanka waa ku jaamacaddu ka tirsan waa kulliyadda beeraha ayaa kan oo soo galay ingiriisku gacanta ku hayo oo secondary school ahaa markaa ahaa secondary qura ee Somaliland protectorate wadankii la oran jiray ka jiray markaanu sanad ku jiray ayaa sheekh oo cusub la noo wareejiyo markaa la dhisay kan 8 sano secondary ahaa oo waxaad ka warqabtaa ragga ka baxay haddii aan kuu sheego Somaliland ragga madaxda way badankoodu secondary ahaan camuud bay ka baxeen waxaan sidaan tagin Axmed Silaanyo dugsigan uu ka baxay kan uu ahaa daahir ayaala kan uu ka baxay Saleebaan Gaal kan uu ka baxay raggan madaxda ee waaweyn wixii xilay aniga iyo wixii ga weyna halkan ay ka baxeen dadka sheekh oo markii dambe iskuul ka baxay Mareykan bay waxbarashadeedii hore undergraduate jaamacadda ahayd waa soo noqday 7 sano shaqeeyay daba post graduate master's degree waxaan ku soo qaatay jaamacadda London post graduate keegu ahaa kadibna sidaan kuu sheegay waxaan kaga soo bilaabay dugsigan oo macallin iyo maamulaba ka noqday waa la foolana waan joogay muddo dheer 20 sano macallin madax waaxid education and psychology associate dean hormuudna waan ka ahaa 80 ilaa 80 runtii oo marka saadar wasaaradda waxbarashadana waxaan ka ahaan jiray muqdisho agaasimaha dugsiyada sare iyo farsamada ayaan ka ahaa muddo gaaban 2 sano iyo ilaa 2 sano kadibna adisabaan yarimidoo dhowr sano joogay oo aan soomaalida Ethiopia ururiyoon meel isugu keeno guddoomiye aan ahaa iyagoo 12 urur laan u tagay hal urur baan u sameeyay ururkan Ethiopian Somali Democratic League ay dhahdaan ana sameeyay aniga iyo Dr. Abdulmajid iyo taas markaan waxoogaa la joogayna jaamacadda camuud baa baahi timid halkana la aloosiyo la jaamacadda samaysanayna markaa dadkii asaasay baan ka mid ahaa maalintii ilaa maantana anaa guddoomiye ka ahaa luqadaha uma badna waa carabi iyo Soomaali iyo Ingiriisi axmaarkana waa fahmaya xabashigana waa fahmaya taariikhdayduna waa waxbarasho runtii sanadkani waa sanadkii 4 waxbarasho ku jiro meel kale kama shaqeynaa waxbarasho ahayn inta burburkana meelo baan ku jiray waxbarashadii meelahan ugu badnaana waa camuud oo 2 jeer aan ka shaqeeyay oo markii secondary ahaydna principal baan ka ahaa 60-aadkii dambe iyo 70-aadkii hore kadibna anigoo guddoomiye jaamacadeed aan kusoo noqday runtii camuud oo aan iyadu dhisnayn laakiin anigu raggii bilaabay aan ka mid ahaa halkan principal founder markii la asaasay ilaa markaan aan guddoomiye ka ahay waa ku yaraagay runtii caadi maaha meelo badan oo waa isbedelku waa badan yahay geeska Afrika marka saad aragto nolol kale malihi oo taariikhda qabanay waa inta waxaan rabaa haddaynu arrinta jaamacadda gallo arrin taariikhda halka ku dayno camuud xilli baan la asaasay camuud waxa la niman dhalinyaro ah oo Sacuudiga ka abariga ka shaqeeya fikradda keenay halka noola yimi dabeeto 1997 ayaanu bilownay kalaaskii ugu horeeyay oo markaan degree qaadanayn laakiin aanu ilaa iska hubino
inay material jaamacadeed yihiin oo xoogay duruus xisaab iyo ingiriisa la siiyey marka 97 1990 la bilaabay duraasad laakiin si rasmi waxa loo furay 98 laakiin waxa la bilaabay 1990 marka ma jaamacad dawliya mise waa jaamacad si gaar ah bulshada shacabka u leeyahay horta waxaad ka warqabtaa jaamacadaha Soomaali oo dhan ay leedahay waxa bilaabay dawladda ma bilaabin sida qaalibka ah ma bilaabin waayo dawlado maamulada ka jira gobolada dawladda Soomaaliland Puntland Soomaaliya midna marka awood uma lahayn inay jaamacada bilaabaan